dagaalkan dabeecadood waxa lagu gartaa dadkaan daacad ahayn khayminta dabeecadda koowaad waxa weeyaan sheekadoodu isma haysato waxa la yidhi qof haddaad been badan tahay xasuus badno aan daacad ahayn waxaad ku garanaysaa sheekadiisu isma haysato waa mid iska hor imanaysa laba indhaha kuma siin kara waa astaan laga garto hadduu qofku qoomamo dareemayo hadduu been sheegayo iyo hadduu wax qaranayo saddex culimada cilmi nafsigu waxay yidhaahdeen qofku markaan u daacad ahayn ama uu been sheegayo ama uu khaan yahay inta badan wuxuu taabtaa wejigiisa sababtuna waxa weeyaan waxa bata qofku markaan u daacad ahayn qulqulka dhiiggiisa meelaha uu ku ururana waxaa ka mid ah sanka waxaa lagu gartaa qofka aan daacad ahayn badanaa sanku taabtaa laakiin waxay leeyihin marmarka qaar way dhici kartaa qofku inuu dhaqan u leeyahay sankiisa taabto iyo inuu qofku xoqon karo afar waxay badanaa bixiyaan tafaasiil fara badan oo aan loo baahnayn maadaama ay wax qaranayaan waxa ay kugu harqinayaan xog fara badan iyo tafaasiil badan oo ay doonayaan goldololooyinka waxa ay wadaan ku qariyaan shan dadka aan daacad ahayn waxaa dhibta aamusnaanta waxaana u haystaa ma aragtay marka la aamusan yahay in laga fikirayo in lagu qabto waxa uu qaranayo ama waxa uu sameeyey marka inta badan aamusnaanta ma jecla waxay inta badan kugu harqinayaan sheekooyin iyo hadal fara badan oo ma aragtay ay focus lix astaan kale loo gartay waxa weeyaan waa dad inta badan eed iska duwa oo eedda cid kale oo inta badan fartooda cid kale ku fiiqa astaantaasna waa astaan culimadu ay leeyihiin waa lagu garto dadkaan daacad ahayn ama wax qaranaya ama wax ka qaldan yihiin toddoba had iyo jeer waxay ku jiraan difaac غير caadi ah ay ku jiraan khaymintu sideed halkudhigeeda ama kelmadaha aad ku garan karta khaymintu waxa kamid ah waxay isticmaalaan weeraha ka mid yihiin intaan ogahay intaan ka xasuusto waa laga yaabaa inaan qaldanaan karo sifada sagaalaad oo ah taw dambaysa khaymintu waxa lagu gartaa waxa weeyaan waa dad badanaa waxay leeyihiin waxa ka muuqda guilty